anigu waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay kala tagi karin geeska Afrika wuxuu maanta hadilmiye muxuu ahaa uu si wanaagsan ugu hadilmiye muxuu ahaa ugu soo ururaysa siyaasadda ka taagan geeska Afrika qoomiyadaha geeska Afrika qoomiyad walba inay hadilmiye wax wada qabsato oo qoomiyadu ay dhexdooda ka heshiiyaan oo hadilmiye muxuu ahaa gees Afrika degan oo hore u mara oo khayraadka Ilaahay ku manaystay fara badan si wanaagsan hadilmiye ula soo baxa sidaas aawadeed hadilmiye muxuu ahaa anigu waxaan arkaa hadilmiye amba Soomaaliland joog amba Soomaaliya joog amba Djibouti joog amba Ethiopia joog Soomaalida maanta hadilmiye muxuu ahaa tala hortaala inay hadilmiye muxuu ahaa nolol hadilmiye noloshan dhaama hadilmiye muxuu ahaa jiilasha soo socda hadilmiye muxuu uga shaqeeyaan taasina waxay ku filan tahay ummadda Soomaaliyeed inay wax wada qabsato maamuladu waa gooni oo maamul waa la samayn karaa hadilmiye maxaa meel u gaar ah laakiin sadanaha hadilmiye geeska Afrika ummadda Soomaaliyeed waa mid aan hadilmiye maxaa kala go'ahayn Ilaahay sidaa u abuuray hadilmiye maxaa midna aanu hadilmiye maxaa mid la'aantii aanu hadilmiye maxaa waxba aan u suuroobahayn anigu hadilmiye maxaa Hargeysaan ku dhashay awaaraan ku koray agtiisa hadilmiye suugaha meel la yiraahdo Soomaaliduna wada sidaa soo meelan kolka hadilmiye maxaa inaynu been isu sheegno ma aha wax weeyaan in runta laga hadlo runtuna wax weeyaan anigu waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed amba Somaliland ha joogto amba Soomaaliya ha joogto amba Djibouti ha joogto amba Ethiopia ha joogto amba Kenya ha joogto way isu baahan tahay sida hadilmiye maamulada la isu afgaransiinayo looda qabsanaya waa arrin kale laakiin se mabda ahaan hadilmiye maxaa qofkii igu jeclaanay iyo qofkii igu nacabba anigu Soomaali baan ahay hadilmiye geeska Afrika Soomaalida ku nool ma kala maarmi kartaa waa maya maamulo hadilmiye kala duwan ma samaysan kartaa laakiin se maamuladaasi midna meel gaari maayo haddana ay soo iman kulka hadilmiye maamulista iyo masiirku waa kala laba أنا waxaan ka hadlayaa masiirka Soomaalida geeska Afrika waa mid hadilmiye Ilaahay sidaa u abuuray waxa laga bedeli karahayn Ilaahay baa hadilmiye inoo sheegay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila shacab weeyaan hadilmiye maxaa isku afa isku hadilmiye dhaqan isku hadilmiye masiir oo kala maarmi karin shacabkaasina hadilmiye isagana uu isu baahan yahay shucuubta kale geeska Afrika ku nool way u baahan yihiin inay wax wada qabsadaan shacab walba oo dabadna shucuubtaas hadilmiye maxaa isku tiirsadaan sidaas weeyad baa hadilmiye maxaa aniga ila tahay laga maarmaan inaan siyaasadda been laga sheegin run laga sheego mana aha hadilmiye maxaa ku anigu ceebsan maayo qofka hadilmiye maxaa aragti kale hadilmiye maxaa aaminsan laakiin sida wax weeyaan aragtida aaminsan tahay iyo waaqaca isu keen sida la isugu keenin karana waxa weeye maamul waa la samaysan karaa degmaa samaysan karta qayb Soomaaliya samaysan karta reer baa samaysan kara laakiin se kolkay noqoto siyaasad guud oo hadilmiye maxaa ummadeed caalamka sidoo u nool yahay waa ummado waliba hadilmiye ummadda Soomaaliyeed waxay kaga duwan tahay hadilmiye maxaa waa ummad runtii dhulkay ku nooshahay hadilmiye maxaa ummado kale oo ku dhex jira aanay